gobolka Nugaal waayatan waxaa ka socday dilal la dilay dadku ay dhimanayaan oo barnaamijyadii iyo dadkii qiimaha lahaa ay dhimanayaan waxaasuna de waa wax Ilaahay maartay qadaray laakiin haddii shacabka Nugaaleed ama reer Garowe ayaan isku tashan oo tala ay midaysan ayaan ka soo gaarin oo nabadoonadii iyo ismadii iyo waxgaradkii gobolka Nugaal hadayaan ka fariisan oo wacyiga iyo dhibaatada socda ayaan maanta ka hortagin tan waa sahal waxay noqonaysaa mid fudud laakiin mid ka xun baa iman doonta waxaan rabaa marka inaan arintan maanta kaga faa'iideysto shacabka reer Puntland gaar ahaan Garowe inaan maanta aan saddex eray iraahdo maanta waxa weeye dalku waad ogsoontihiin cadow baa ku soo duulay cadowgu meel badan buu ku dhex jiraa waxa la rabaa marka in la isfahmo oo la is ilaashado oo gobolka amnigiisa iyo noloshiisa la ilaaliyo haddii Garowe saaka la burburiyo oo caasimadii Puntland weeye muraadii Puntland weeye qiimo ma yeelanayso marka waxaan rabaa shacabka gobolka degan oo caasimadda degan waxaan rabaa walaalayaal maanta xaaladani xaalad culus weeye Ilaahay baa qofka jideeyay in la qisaaso in mag laga qaato in la cafiyo inta Ilaahay baa jideeyay laakiin walaalayaal oo maanta waxaan leeyahay war xaaladdu yaa joogay bay leedahay yaa maali jiray bay leedahay yaa wax garada bay leedahay qof allaale qofkii maanta xishoonaya inuu maanta ka cararo ama ninkii maanta hanti haysay uu ka cararo oo nafsadiisa la cararo oo dalkii dhibaato iyo burbur maanta halka uu caasimadii ay noqoto suuragal maaha waxaan rabaa salaadiinta iyo isimada iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka iyo gabdhaha wanaagsan ee gobolka Nugaal arinta in loo gurmado in awoodda la saaro in laga midoobo oo sidii arinta cabtowdaas dalka looga qaban lahaa hadda waxaan la ii sheegay in dawladii ay qolo ay soo dirtay dawladuna waa ogsoontihiin oo wax cilmiskaad bay ku hawlaysan tahay marka waxa fiican marka inagu intaynu isku tashanno dawladda la shaqeyno amni samaysano qof allaale qofkii la yiraahdo maanta waa cabtow farta lagu fiiqo dawladuna ay qabato arinta waa la rabaa laakiin inaynan gudaha marsan ama maanta hadii wax la gaarsiyo aan la orano wiilkan wiil nin fiican buu haayo ama masaajid buu ka adamay ama sheekh buu aan la orano dabada la gashan ama 250 geer laga qaadan anu marka waxaan leeyahay arintaas inaan ma qosayso wax inay dhaqaysana maaha waxaan rabaa inaan iraahdo ehelka gobolka Nugaal in war nabadgelyadeena inaga ku nool aynu ilaashano wixii cabtowdaasna aan iska qabanno midna aan ka noqono waxaan hadda ogsoonahay in dawladda federaalka hadda ciidamada ay qorayso kuwa kale in hadda la sheegay inay soo socdaan in rabshad laga wado arintaa laga hortago gobolka Nugaal gaar ahaan waxaan leeyahay reer Nugaaleedow degmadiina iyo gobolkiina iyo caasimadda muraadii Puntland weeye aynu ka midowno nabadgelyadeeda iyo midnimadeeda iyo wadajirkeeda sababtoo ah Puntland waxay u tahay muraayad in Soomaaliya waxay u tahay muraayad Puntland waa ogtihiin waa hooyadii federaalka in la burburshan lama rabo waxaan leeyahay dawladda iyo shacabkaba aan midowno gacanta isqabsanno si aynu nabadgelyadeena iyo wadajirkeena iyo midnimadeena aynu uga shaqeyno intaasaan leeyahay maanta adeertiis iyo walaalihiis iyo bahruwi maxamed siyaad bare jamhada maridin waxa la yiraahdaa siyaad bare waxay dhahan Soomaaliya xasuuq ka geystay deegaanada iyada sidoo kale deegaano Puntland kamid ah sida mudug oo kale waxa la yiraahdaa diyaarada waxay sameeyeen barkado xoolo laayay bal taariikh maxaa ka jira barkadaha lagu leeyahay xoolo laayeen lama leen xoolo barkada ma leen sun lama qomo barkadaha waa la dumiyay barkadaha waxa ay u ahaayeen maraaxil kulmis wixii xagga u socday iyo xagga u socda waa laga guuray barkadaha dadkaas cabbi jiray waa u dumiyay dadkaas sidoo haraaday u baabaaneen buu u dumiyay kowdhe aad isaguna ma dumine wixii ka hooseeya dumiyay kowdhe oo cadowtinimana u burburinayay isagana tusaayay inay tahay meel colaadeed ma garatay meesha la yiraahdo waqooyi Hargeysa waxa lagu sheegay waa been Maxamed Siyaad Baraan wax u geysan Ali Samatar baan wax u geysan iyaga hogaaminaya hadda ka dhacay dawladda bixi ninkii hagaayay oo halka ku dhufo diyaaradda habad ku dhufalka kowdi ina
nin la yidhaahdo ina khaliif ciise mudan diyaarad buu waday booraan buu ka tuuray dhici baan hagaayey nacayb weeye waxa kale ay ku leeyihiin waa nacayb inaga hartiin nacayb weeye waxa ay leeyihiin maxamed ama daarood nacayb waxa ay leeyihiin maxamed siyaad baa wax u geysan saraakiishu iyaga yahay madaxdu iyaga yahay madaxweyne ku xigeenku iyagu ahaa intee ka hooseeya isaga